oo inaan qariyaanay banaanayn. dad fara badanna way soo weydiiyeen maalmahan oo dhan arrinkiisa. mar haddii su-aashu ay fara badatay waxaan isku dayay anigoon cidna ka waraysan bal inaan anigu si toosa aan u ogaado aanay cid inoo dhaxay. waxaan daawaday fideoyada laga duubay ee youtube-ka ku jira, siduu wuxuu akhrinayo, siduu wuxuu cilaajinayo, sida waxyaabaha uu ku hadlayo uu sheeganayo. aniga markaan arrinkaas sameeyey waxay i muuqday 7 mukhaalafo oo shareecada islaamka qur-aanka iyo sunnaha khilaafsan oo ninkaa cilaajkiisa ku jira. baalahan dadku ay ku wada xidhiidheenna iyadoo carabiya baan ku qoray, laakiin iyadoo soomaaliya magaalada wajaalo oo habeen dhaweyd dacwadan ku tagay oo laiga weydiiyey muxaadaro dumarkaa mooyaane halkan ka hor kagama hadal. walaalayaal, sixirku waa jiraa, ishuna way jirtaa, jinku dadka inu durayaana waa jirta. in la iska cilaajiyo la iska daweeyaana waa sharci. wamaa anzala allahu daan ilaa waanzala lahu dawaa. dawada u weynina waa qur-aanka iyo ducada. ilaahay subxaana watacala wuxu uhi wanunazilu min alqur'aani ma huwa shifaan waraxma. qur-aanku inuu dawo yahay ilahay baa subxana watacala sheegay. nebiguna in la isku daweeyo qur-aanka iyo ducada waa inoo sheegay. oo ruqyada nebigu waa sameeyey, ummaddana waa u sheegay, waa ku dhiirigeliyay. laa ba'sa biruqa maa lam takun shirka. ruqyadu ah qofka in qur-aan ama duca lagu tufaa dhib iyo dembi ma laha mar hadday shirki ka maran tahay buuri nebigu alayh isalaatu wasalaam. laakiin ta muhimkii waa in la ogaado ana aruqyata cibaada. ruqyadu inay tahay cibaado, tufitaanka qofka qur-aan iyo duca lagu tufaya. cibaadadaasi waa in laga ilaaliyo dheeraad, waa inaan laga dhigin maxalu tajaarib. tajribe lama gelin karo. ibiga maadiga ah ama ka kiimikada ha noqde ama ka acshaabta ha noqdee tajribu ku socdaa. laakiin ibiga sharciga oo qofka in lagu cilaajiyo qur'aan iyo duco waa tawqiifi, isagu wax tajriba ay geli karta maaha. qur-aanka dadka marka lagu akrinaayo waxaa la sameynaya ruqya la dhahda. ruqya waa maxay? ruqya waa qira'a macaha nafas, waa qiraa'o tufitaanu la socdo oo qofkii mariidka ahaa qofkii intuu qur-aankii akriyo ama ducadii akriyo tufkiisi uu gaadhaayo. horta taasi ma jirto. wadaadkaasi microphone buu meel la fadhiyaa, intaasoo boqol oo qof bal mararka qaarkood tiro ka badan ayaa garoon lagu xareeyey, sameecado waaweynna waa la dhigay, halkaasuu markaa aayad ama dhowr aayadood uu ka akrinaya. tiifiyada qaarkoodna waxaan ka arkay microphonekuu ku tufaya, microphoneka waxaana la rabay tufriinku inuu dadka gaadho. horta ruqyaba noqon mayso mar haddaanad qur-aankii aada akhriday qofkii mariidka aad ku akriyeysay tufkaagu aanu gaadhin, waxaa ruqyaba lama idhaahdo. culamaa ulislaamna ruqya uma yaqaaniin. markaa isku daweyntii qur-aanka waxbaa ka khaldan. taasi waa mid. ta labaad, qur-aan akrintu aada iyo aad bay ugu yar tahay. aad bay ugu yar tahay qur-aan akrintu. hadalkiisa kale iyo sheekada dadka jinku uu ka hadlayo uu la sheekaysanayo wax weydiinayo ayaa aada iyo aada uga badan qur-aan akrinta. wax qarsoonna maaha. qof walooba youtube-ka galo bal adiguba keeg waad arki doonta, indhaagaad ku arki doonta. qofka mucaalijka dadka qur-aanka ku akrinayaan waa inuu u hagar baxo dadkii qur-aan ku akriyo. arrintaana waa inuu u sabro. in aayad la akriyo oo kadibna aayaddii kelmad laga soo qaato, kelmad laga soo goosto oo kelmaddaasoo qura lagu celceliyaana iyaduna waa arrin saddexaad oo shareecada khilaafsan. waxaana aada ugu badan inuu kelmad qura ku celcelinayo sixir 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 sixir. bal mararka qaarkood aayadda wuxuu ka soo goynayaa in macnaha bedelaysa hadal kaleo isagu leeyana wuu ku darayaa, dabeetana meeshii waxaa ka soo baxay waxaan qur-aan ba ahayn. culimaduna waxay dhahaan qof marka qur-aan lagu akrinayo waxaa shardiya qadarka qur-aanka ah ee qofkaa raaqigii uu akrinayaa waa inuu noqdo qadar macno dhamaystiran samaynaya. tusaale, waxaan dhegaystay waana cajuus waana cajuus waana cajuus waana cajuus oo ku celcelinaya waana cajuus. bal adigu macnee anigoo oday baan ahay, anigoo oday baan ahay, anigoo oday baan ahay. hada laysa biqur'aan. waa in qur'aanka haddii qeyb aayad ka mida la akrinayo qaybtaasi macno dhamaystira waa inay gudayso oo ay tusinayso.
markaasa waxa ka sii daran waxa xagga dambe ka raaciyay wa ana ajuusun ya umma sibyaan wa ana ajuusun ya umma sibyaan ya umma sibyaan quraanka may ku jirta kuma jirta quraanka waa hadal kale aayadu uu qayb ka soo qaaday iyo hadal isagu sida uu dhigaayo jin qofkan ku jira uu la hadlayo labadiiba isku xidhmaaya deetana maxaa soo baxaya waxaan quraan ahayn baa meesha ka soo baxaya waayo waxa kamida mukhaalafaadka sharciga ee ka muuqda dumarka ajnabiga ka ah in xaaskiisina ay maxaarimtiisina aan ahayn ee wadaadkaasi uu taataabanayo taasina mid qarsoon maaha faryarada isagoo hayana waad arki kartaa gacmaha isagoo sidaa u hayana waad arki kartaa cunaha isagoo ku dhaganna waad arki kartaa وهذا لا يجوز والذنب أرنت نوعاسي حديث النبي عليه الصلاة والسلام خلاف سن النبي وحول عليه الصلاة والسلام سوى طبراني أوريي لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن تمس يده يد امرأة لا تحل له وحديث النبي عليه الصلاة والسلام والصحيح مدكين مضع حديدة إن مضح لقاقة تاغو مصبار كالصبادة صباد أرق هل كاين لقاقة تاغو ayaa ku dhaanta oo kaaga ciqaab sahlan inay gacantaadu taabato gabadhan xalaal ku ahayn yaa u xalaaliyo wadaadka dumarka ajnabiga ka inuu taataabto ma daruura keentay baa la oran karaa la ruqyadu uma baahna dumar taabasho ruqyadu waa quraan la akhriyo qofka lagu tufo waa duco inta la akhriyo qofka lagu tufo wax taabasho haba yaraatee u baahan tahay ma jirto waa khalad cad meesha waxyaabaha noocaasi ay ka dhacayaan munkaraadka sharciga ilaahay khilaafsan qaarkood ay kabaa'ir yihiin wa kabiira arrinta noocaasi nebigu wuxuu yidhi walyadu tazni wa zinaha albatsh muslim baa wariy gacantu way zinaysataa sinada gacantu waa maxay waa taabashada ay taabato gabadhan xalaal u ahayn waxa igu maqaalo ah dadka qaarkood ay sheegeen inuu dhakhaatiirtuba waa taabtaan aniguna waan taabanaya dhakhaatiirtu aayadna maaha xadiidna maaha dhakhtarka laftiisana uma banaano dumarka ajnabiga ka inuu taabto haddii aanay daruura keenin isaga laftiisu waa ku dambaabaya qadiyadan ruqyaduna sideedaba wax taabasho ay u baahan tahay haba yaraatee ma jirto waxaa ka mid a khaladaadka cad ee aan qarsoonayn dad sidaa uu wadaadku ku sheegaayo jin ku jiro oo dumara oo maradu ka dhacayso intuu dhaa gacmaha taaga ilaa garabka ilaa faruhu ay muuqdaan inuu tiifina ka duubayo uu leeyahay kusoo duwa waa cawra waxaas ay waajib tahay in la asturo daruuro keentay in la kashifo banaanka la soo dhigan aanay jirin waxaa iyaduna khalad labaad oo shareecada khilaafsan in la geliyo youtube-ka internet-ka facebooka deetana ruuxa dumarka cawradeedii qof kasta oo meeshaa gala u arkaayo yaa dembigeeda taxamulaya arrinta noocaasa dhabarka u ridanaya khaladaadka waxaa ka mida ka muuqday cad almubaalaga fi istikbaar iljin xeeldheerasho ku xeeldheeraanayo waraysiga jinka dabeetana uu rumaysanaya wa hada laa yajuus jinka qof ku jira inta la waraysto in warkiisii la qaato oo wax lagu dhisaa mid bannaan maaha waxaana idhi culamaau lislaam hada min tasdiiqi lkuhaan qofka jin qof ka hadlaya rumaystay wuxuu la mid yahay qofka faaliya rumaysta rumaysiguna hadalkiisa uu ka cad yahay waana waxaan dhegaystay waxa laga soo tabiyey maaha oo gabadh baa waxaa ka hadlaya jin oo sida arrintu ay muuqaal ahaan u eg tahay dabeetana aad buu u waraysanaya maxaad tahay nin baan ahay xaggeed degantay gabadhanaan la jaar ahay maxaad ku samaysay waan sixray maxaad u raacisay waxaan u raaciyey biyo uma gurigeedaad joogtay ma inamaan soo raaci jiray kusoo dhaya dadow hooy isilaaliya ragga guryaha soo gela iska ilaaliya dumarow soo ma aragtaan dumarow dumar hala saaxiibina iska ilaaliya la sixrin daliil cad oo tusinaya annahu sadaqa hada aljinniya inuu rumaystay jinkaa waa tusaale qura kaas laakiin tusaalayaal aada u tiro badan ayaan arkay khaladaadka waaweyn waxaa ka mid a ee caqiidada weliba taabanaya oo aada hadalka wadaadka ugu soo noqnoqonaya inuu odhan ilaahayow dad kale aday kuu yimaadeen aniga ima iman bal aduu hadalkaa fasir ilaahu aday ku yimaadeen macnaheedu waa maxay miyay soo xajiyeen ilaahay subxaana wa tacaala dadka xajka taga buu ihi atwnii shuchan gubra
iyagoo basaasaysan oo boodhaysan bay aniga ii yimaadeen garoonka ay tageen ilaahu aday kuugu yimaadeen macnaheedu bal waa maxay bal aad u fasir dadku meesha ma cibaada u tegeen ma ilaahay baa halkaa joogo ay ugu tegeen abadan dadku dabiib bay doonteen iyo cilaaj xanuunay ka cabanayaan marka in la dhaha ilaahu aday ku yimaadeen waa qalad waana iftiraac cala allah waa been abuurad ilaahay subxana wa tacala lagu been abuuranaayo khaladaadka waaweyn waxaa ka mida qofku inuu sheegto maaha awood aanu lahayn waxaanu ogeyn ilaahay inuu ogol yahay oo u diray oo u sharciyeyo in kale inuu ilaahay u tiiriyana maaha waxaa hadalka wadaadka aada ugu soo noqnoqonaysa ilaahay oo hawshaasi adigaa ii diray adigaa ii doortay hawshaasi mararka qaarkood wuxuu raacinaya ilah waan ku keliyeystay hawsha noocaasa wahada kalad kumanuu keliyeysan intaasoo qof baa qur-aan akrinaya oo dad xanuunsanaya waxa wayaan ku akrinaayo markuu leeyahy ilaahu adigaa ii diray ma wuxuu ujeedaa ilaahu adigaa ii qadaray hadduu taa ujeedo dee qadarku xalaalnimo iyo xaaraannimo wanaag iyo xumaan midna ma tusiyo arrimaha sharcigaa lagu kala gartaa hadduu ujeedo sharci ahaan baad ilaahay oo adigu iigu dirtayna waa arrin daliil u baahan bal qofku inuu wadiifo iyo shaqo uu ka dhigto ruqyada uu idhahdo anuu meel baan fadhiisanayaa dadka ayaan ruqyo ku cilaajinaya culamaa ulislaam way diideen taas fataawadoodana way ku caddahay nebiguna calayhi salaatu wasalaam ma samayn cid saxaabada ka mid oo u xil saarayna ma jirin oo arrinta noocaasa shaqo iyo hawl ka dhigatay qofka muslimkaa qof xanuunsanaya la kulmo waa ku tufi jiray khalaas waa dhaafi jiray waxyaabahan cilaajaadka noocana ee la furay ahlucilmiga qaarkood waxaabay leeyihin iyagaaba qayb ka ah jinkan iyo shayaadiintan dadka san waxa weyaan ugu dhex faafay oo qaar baaba doonayaba arrinka noocan ah khaladaadka waxaa ka mida cilaajkaasi aadka iyo aadka uga muuqda iyadoon taa wadaadka loo nisbayn karin cilaajkiisu sababaha u noqdee in dadkii qaar caqiide xunba ay aamineen oo ictiqaadeen kaana shifaa biyadi soo dawadu ay isaga gacantiisa ku jirto oo haddaad tira kaale anaa qur-aanka ku akrinaye ama qof udha anaa qur-aanka ku akrinay odhanayo mi aanu qur-aankaaga dooni maayo kaasaan qur-aankiisa doonaya waar shifaagu qur-aanku ku jiraa kitaabka ilaahay waa ina taasi ictiqaado qof isagu shifaa hayaa ma jiro ashifaau biyadi illaahi subxaanahu wa tacaala khaladaadka noocaasa arrinta ku saabsan in dadka qaarkood ay daadanayaan ama ay dhacayaan wax allaale waxay daliil u tahay ma jirto wax allaale waxay daliil u tahay ma jirto khayrna daliil uma aha barakana daliil uma aha welinimona daliil uma aha waxaan ku tusi karaa indhahaan kuu saari karaa baadariye kristaan ah oo dadka biyo ay wax ku akriyaan sidaa ugu rusheeno dadku ay wada daadanayaan ay wada suuxayaan daadashadaasaa dad fara badan ka fajicisay odhan wallaahi wadaadku markuu waxyaro akriyo ama uu hadlaba ama meesha uu soo galaba dad badan baa rabdada noqonaya oo daadanaya calaa kulli xaal anigu sharci uma arko qaabkaasi wax loo cilaajiyo wax badan oo ilaahay sharcigiisa khilaafsanna way dhex socdaano way ka buuxaan oo aan qarsoonayn oo qof dafiri kara haba yaraatee aanu jirin oo fiidiyoyada wadaadku uu iska duubay ee meelahaasi u geliyey markhaati cad ay u yihiin oo cid xataa meesha tagtay oo laga soo warinayaa waxa weeyaan aanay jirin waxaan leeyahay mar walba arrintan oo kale markaynu xoogay joogno way dhacaysa qof odhanaya dadkan dabiibayaabaa lagu jabayaa dadku ay ku yaacayaan muddo yar kadib haddaad ka waraysatana bal wadaadkii ka warramana lugooyu ahaabay ku odhanayaan dadka waxaan leeyahay ilaahay ha la aamino subxana wa tacala ilahay baa shaafiya qofku isagu naftiisa ha cilaajiyo oo qur-aanka ha isku akriyo ducooyinkana ha isku tufo qofka muslimkee ka agdhow ee qur-aankii ama ducadii garanaya igu tufa yidhaahdo arrimaha noocana ee dadku ay marba meel ku jabayaan iyagoo weliba dadkii ahlucilmiga aan waxba weydiin oo aan odhan arrintaasi ma saxba mise waa khalad maxaad wax khaldan ku aragteen maxaad sax ku aragteen wax saxa maaha walaalayaal marbana inta la khaldamo in haddana marka dambe khaladka iyo wixii dib looga hadlo waxba tari mayso khaladka marka hore in laga badbaado ayaa muhiima khaladaadka waxaa ka mid a halista ah in dadka la dhaa warqadaa saxiixa qofkaasi hadduu wax noqdo inaydan aniga ii qabsanahayn waayo waxaa la garaacaya dadka qaarkood garaaca yani aan sax ahayn nebiguna uu diiday darbiga ama garaaca mubrixa ee qofka bararinaya marka isaga laftiisa isla qofkani uu dhiman doonaa markaad garaacdo ama cunaha markaad qabato naqaskaa ku dhegi doona uu dhiman doonaa
sida culimada qaarkood oo magaalooyinka qaarkood waxa weeyaan degan sida magaalada Boosaaso oo kale oo culimo waaweyn ahaan iyo cilmi ahaanba ay noo sheegeen dad arrinta noocaas ku dhintayna way jiraan marka waa ka hortag marka dadka la leeyahay warqadan saxiixa qofkaasi hadduu dhintay inaydan waxba inoo qabsanahay anigu uma arka in loo tago in cilaaj loo doontana uma arko wax sharciga khilaafsan oo khuraafaadna ay dhex socdaan baan u arkaa nusxa lillahi walirasuulihi walidiin alislaam ولعامة المسلمين وحن لي أرن كاسها اللي يسكدها والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد